galab wanaagsan daawadi halkan waa madasha qodobada warka galab aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihiin qaayib galgaduud bartamaha Soomaaliya. saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya oo guulo ka sheegtay weerarkii waa berigii hore ee saaka ka dhacay qaayib iyo weerarkii ugu dambeeyay ee qaayib ka imaanaya iyo xaaladda guud ee xilligan ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa. muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday meydad dhowr ah ayaa sidaas oo kale warbixinta warkayaga ku eegi doona. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay qaarijiyeen in ka badan 15 xubnood oo shabaab ka tirsan howlgal qorsheysan oo ka dhacay Shabeellada Hoose ayaan warkayaga ku eegi doonaa iyo nisa oo howlgalkaasi fulisay. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo wali ku sugan furmaha hore ee dagaalka Shabeellada Dhexe. mar kale wararka aynu helayna waxa ay tibaaxayaan in markaasi furmaha deegaano kale oo dhowr ah oo dhaca Shabeellada Dhexe in uu ku wajahan yahay iyo ujeedkiisa xiga ee dagaalka shabaab ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa iyo deegaanada saraakiisha lagu amray in weerarka ay ku qaadaan ayaan warbixinta warkayaga ku qiimeyn doonaa. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya dawladda Federaalka Soomaaliya tababar ay u soo xirtay ciidamo qayb ka noqonaya dagaalka lagula jiro shabaab ee ka soconaya guud ahaan gobolada dalka ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo howlgallada Hiiraan iyo Galgaduud. qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa daawadayaal. waxaan ku xasuusiyaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarta gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan idinkugu soo gudbino. qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oo raahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinayno. muuqaaladeena sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag si mar waliba ay u helaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida daafaheeda ka dhaca. ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ayay aroornimadii hore ee saaka ku qaadeen saldhigga deegaanka qaayib galgaduud bartamaha Soomaaliya. weerarka waxa uu ahaa mid culus oo qaraxyo ku bilowday. wararka naga soo gaaraya deegaanka qaayib ee galgaduud ayaa sheegaya in markaasi gacanta ay xilligan ku hayaan ciidan ka tirsan kuwa dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka kadib dagaal culus oo aroornimadii hore ee saaka halkaasi ka dhacay. dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahano shabaab ka tirsan ay soo qaadeen weerar qaraxyo culus ku bilowday isla markaasna ay la bartilmaameedsadeen saldhigga deegaanka qaayib oo ay ku sugnaayeen ciidamo militari ah iyo kuwa deegaanka. waxaa la soo sheegayaa in dagaalka saaka uu geystay khasaare ballaaran oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dawladda Soomaaliya war ay ka soo saartay weerarkaas waxay sheegtay in markaasi shabaab si weyn loogu jabiyo dagaalka saaka ka dhacay deegaanka qaayib isla markaasna ciidanka ay fashiliyeen rabitaankii shabaab ee ahaa in markaasi saldhigga gacanta ay ku dhigaan. waxaa la fashiliyay 3 qarax oo shabaab ay doonayeen inay ku geystaan waxyeelo. qawaarijtu mar kale waa ay ku jabeen qaayib shaake. ilaah ayaa mahadsan kadib mujaahidiinta waxa ay beeniyeen doonistii qawaarijta ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. shabaab ayaa dhankooda sheegtay in ay qabsadeen deegaanka ayna markaas waxyeelo ay ku gaarsiiyeen ciidanka. sidaas oo kale waxaa muuqaalo iyo sawiro la soo qaaday ay muujinayaan markaasi dagaalkii saaka aroornimadii hore ee saaka ay ku qaadeen shabaab saldhigga deegaanka qaayib galgaduud bartamaha Soomaaliya. xubno saraakiil ah oo soo bandhigay muuqaalo iyo sawirada shabaabkii weerarka soo qaaday waxay sheegeen in meydadkooda ay hayaan sidaas oo kale koox kale oo baxsatayna in wali ay ku raad joogaan. shabaab ayaa sidaas oo kale weeraro dhowr ah horay waxay ugu qaadeen saldhigga deegaanka qaayib galgaduud bartamaha Soomaaliya iyada oo sidaas oo kale waxyeelo dhowr ah ay horay kaga soo gaartay. dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa shabaab waxay kula jirtaa dagaal adag oo dhinacyo badan ah. galgaduud waxa uu qayb ka yahay furmaha dagaal ee xilligani shabaab markaasi ku furan. markana Shabeellada Dhexe
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray shabeellada dhexe isla markaasna booqasho ku gaaray furumo dhowr ah oo shabaab horey looga saaray ayaa bulshada halkaasi kula hadlay madaxweynaha oo markaasi socdaalkiisii ugu horeeyay ku gaaray Cadale waxa uu sheegay in dawladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah shabaab isla markaasna lama jigi labaad ee dagaalka shabaab looga saarayo deegaano dhowr ah uu bilaabanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidaas oo kale sii gaaray deegaanka masaajid Cali Guduud halkaas oo dagaal culus oo ka dhacay kadib ciidanka dawladda bishii aynu ka soo gudubnay u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan madaxweynaha ayaa sidaas oo kale waxa uu gaaray ilaa iyo Nuur Dugle halkaas uu kula hadlay xubnaha saraakiisha ay horkacaysa dagaalka ka soconaya shabeellada dhexe waxaana madaxweynaha socdaadkiisa ku weelinaya madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage iyo xubno kale oo saraakiil ah iyo xubno xildhibaan ah waxayna si wada jir ah u sheegeen inay ka go'an tahay sidii shabaab looga saari lahaa guud ahaan goobaha ay kaga sugan yihiin shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa dadka reer Nuur Dugle waxa uu ballan qaaday in markii shabaab ay iska dulqaadeen kadib deegaanka uu helayo waxbarasho caafimaad iyo sidaas oo kale guud ahaan inta ay helaan deegaanada kale ee la midka ah oo ay dawladda federaalka Soomaaliya xilligaani gacanta ku hayso waxa uu xusay in uusan joogsan doonin dagaalka adag ee soconaya xilligaani oo dawladdiisu ay shabaab kula jirto markana aynu eegno NISA waxa ay sheegtay in ay fuliyeen howlgal qorsheysan isla markaasna ay ku dileen in ka badan 15 dagaalyahane oo ka tirsan shabaab dawladda federaalka Soomaaliya goor dhaweed waxay shaacisay howlgal qorsheysan oo lagu dilay ilaa iyo 15 xubnood oo ka tirsan shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in xubnahaas lagu dilay howlgal qorsheysan iyo duqeyn ciidanka gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Buulo Midiino oo ka tirsan shabeellada hoose ciidanka gaarka ah ee NISA sidaas oo kale waxa ay howlgalkaani ka kaashadeen saaxiibada caalamiga ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnaha shabaabka ah ee la laayay oo si gaar ah ugu daba jiray sirdoonka Soomaaliya ayaa ahaa firxad ka badbaaday howlgal 23 bishan laga fuliyay deegaanka Buulo Midiino kaas oo lagu dilay 49 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda NISA si gaar ah waxa lagu yiri ciidanka gaarka ah ee hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa sidoo kale burburiyay gaadiid ay ku baxsanayeen dagaalyahanada shabaabka ah iyo hubkii ay wateen howlgalkan ayaa dawladdu sheegtay in lagu dilay shabaab badan kuwa kaas oo ku soo aadayo xilli uu gaabis ku yimid dagaaladii ka dhanka ahaa kooxda ee ka soconaya gobollo badan oo dalka dhaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud horay wuxuu ugu dhawaaqay in dawladdiisu ay ka go'an tahay sidii guud ahaan goobaha xilligan shabaab ay kaga sugan yihiin ay ka saari lahaayeen sirdoonka qaranka ayaa maalmihii aynu ka soo gudubnay waxay wadeen howlgallo gaar ah kuwaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan fariisimo shabaab ay ku leeyihiin shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inta badan waxaa ka gacan siiyay saaxiibada caalamiga ah kuwaas oo markaasi dawladdu ay horay u sheegtay in ay ka kaalmeynayaan dhinaca duqeymaha cirka ah dagaalka adag ee lagula jira shabaab markana aynu imaano ciidan qayb ka noqonaya howlgalka shabaab looga xureynayo guud ahaan dalka ayaa tababar maanta loo soo gabagabeeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Maxamed Xijaar ayaa dalka Jabuuti tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed dufcadan oo noqonaysa dufcadii 17aad ee ciidanka booliska ayaa tababarkooda waxa iska kaashaday dawladda Soomaaliya iyo sidaas oo kale dawladaha Talyaaniga iyo Jabuutiga waxaana la xusay inay qayb ka noqonayaan howlgallada soconayo taliyaha ciidanka booliska waxa uu sheegay in cutubyadan tababarka soo dhameystay la doonayo in deegaanada laga xoreeyay qawaarijta shabaab la geeyo si ay ula wareegaan ammaanka goobahaas ciidankan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay doonayaan xasiloonida iyo wada shaqaynta bulshada iyo deegaanadu ay ciidanka la wareegeen kuwaas oo markaasi deegaanka ka saaraya kooxda ayaa lagu yiri
sida qorshuhu uu yahay ciidankan ayaa dalka ku soo laaban doono toddobaadka soo socdo xilli markaasi dhiig cusub lagu shubayo howlgallada dagaalka ka dhanka ah shabaab kuwaas oo ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dagaalka. waxa uu si gaar ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed u sheegay in ciidankani la doonayo in la geeyo deegaanada iyo degmooyinka markaas ciidanka howlgalladooda ay gacanta ku dhigaan. waxa uuna xusay in la doonayo in bulshada ku dhaqan deegaanadaas ay u adeegaan. horey madaxweynaha Soomaaliya ayaa u xusay in markaasi deegaan iyo degmo waliba oo la qabto in la geenayo ciidamo booliis ah sidaas oo kale ay heli doonto goobo waxbarasho iyo caafimaad si la mid ah deegaanada iyo degmooyinka gacanta ay ku hayso. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an sidii guud ahaan gobolada dalka looga saari lahaa shabaab waxaana xilligan soconayo wajiga labaad gulufka la doonayo in dib loogu soo celiyo dagaalada culus ee ka soconaya gobolada dalka. halkan waa madasha ee galab wanaagsan daawada guud ahaan warkii oo aad kala socoteen waanaga inta waad ku mahadsantahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horreysay aynu ku xasuusino inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furto muuqaaladayna laag aad saarto si asxaab fara badan sidaada oo kale ay u gaaraan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararkii warbixinada aan kuu soo gudbinayno muuqaaladayna sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag. halkan waa madasha ee mahadsanid daawada.